Esther Kurlibaax iyo Qadar isku dhacooda runtii Esther Kurlibaax ayadoo ilmeynaysa ayay waxay ka sheekeynaysay qisado iyo dabargoynta uu ku sameeyey gabar walaashiis oo ka weyna oo kale ama hooyadiis oo kale ah runtii yaraanayna ku dhashay waxaana arkaya dad caytameeya ee Esther u soo saftay oo asaga uu ka koow yahay horta Qadar oo waxaa ceeb kugu ah gabar walaasha intaas la soo noolayd ama ilaa qaxootiga ilaa Nairobi aa la joogtay inaa aad dhabarka ka toogatid misana aad dumar usoo kaxaysatid ood caaya aad tiraahdid oo af lagaataysid naanaa iga dheh waxaa maqli jira ceertaa dhamacaydaada yaqaana iyadii ka maqli jira ilaahay oo u naxariistay maamahdaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaashiin ugbaad official oo waayadaa dhinka xanuunsanayd ilaahay baa mahadale maanta waa yara roonay alxamdulilah waxaan sheegay waa dembilah xoogaa waa yara xanuunsaday inta xanuunsana allah ha caafiyo inta caafimaad qabtana ilaahay ha u siyaadiyo muuqaygana waa tabteen dad badan oo tabe oo isoo waca ayaa jiro mahadsanidin ayaa ina leeyahay iyo dad commenti iisoo qoray oo dhahay xaggee aaday ugbaaday waa ku weynay waan xanuunsaday alxamdulilah hadda waan yara roonahay inkastoo weli xanuunkii ugu dambeeyo laakiin waxaa sheega waa dembi alxamdulilah dembi dhaafna ilaahay nooga dhigo waxaan rabaa dhowr ere inaa halkaan ka dhaho runtii naanaa igadhe Esther Kurlibaax runtii waa hooyo Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed oo sharaf leh oo nolosheeda iyo xoogeeda dhacsata ilmo aan aabbo ku biilina haysa oo ay la daalaa dhacayso ilaa qaxootiga ilaa Nairobi runtii waa ay ka sheekaysa waxay tiri wiilkan walaalnimo ayaan usoo dhaweeyey asagana dhabarka ayuu iga toogta ayay tiri runtii muxuu ahayti dad badan oo caytamanayaan oo arkayay Estaray ha u joojinin horena u sii soco ayaan ku leeyahay weligaa qofku caaye looma jawaabo ma garatay runtii Qadar wuxuu lahaa aniga madaxayga iyo naagii waxay lahaayeen ayay Esther kusoo caanbaxday Qadar oo runtii haddii aan kuu sheego iyo dumarka caytamaya gabadha walaashood usoo saftay waxaan inii sheegayaa inay Esther Kurlibaax madaxeeda aan ku barta Qadar runtii dad badanna waa ay ogyihiin oo muxuu ahay social media daawada walaalaha qaaliga ee Soomaali weyn waxaan waad wada aragteen Esther Kurlibaax oo hadlaysa ee dhahaysa Nairobi ilaa halkaas aniga ayaa wadwaday asagaana isku kay daba ka kabayay runtii dadka wax isku daba ka kabaya waa runteed waa la arkaa asaga ayaa mar walba walaaqanaya oo ku dhex jira reerka hadday YouTube duubanayso iyo hadday TikTok duubanayso dadka caan raadiskaana saas lagu yaqaanaa Estherna caan raadis ma ahan YouTube-keedana ayadaala wax uu u furo malahan because hadduu u furo waan arki lahayn asaga YouTube-keeda ayadoo le ayay isbarteen ma garatay qaxootigana dhinac ayuu ka deganaa reerkeedoo dhisanoo ninkii hore uu joogay ee kala tegayeenna iyadoo la jooga ayuu la saaxiibay reerka uuna u imaan jiray maadaama uu hadda uu reerka markuu kusoo biiray oo caada dad walaala oo isla nool ay noqdeen oo qol la dejiyey oo lasoo dhaweeyey oo la karaameeyey inuu gabdhihii yaryaraa Esther Kurlibaax ay dhashay inuu qolkooda ugu daba maro oo misana filmaan xunoo sagsiya uu moobeeladooda ee headbadkooda iyo ku qorqorto ama ku fiirsado wixiina waa gabdho yaryar ilmo yaryarna wixii ay arkaan ayay sameynayaan ayagana ama dhaqan xumo ah runtii ilmaha waxaas waa laga qariyaa haddana gabdho qolkooda maxaa geeyey ilmo yaryar oo gabdho ah inuu u daba maro qol baa la siiyey asaga iyo wiilasha kaleba way isla deganaayeen maxaa fartaagan ka dhigay oo gabdhaha yaryarka oo u dhuumanayo dee Estherna waa runteeda gabdhaheeda ka ilaashanaysa runtii iska daaya qaraabada ku dhow baaba laga ilaaliyaa ilmahaaga laga ilaashadaa iskaba daaba qof aada soomaalinimo aad isku tihiin in aad soo dhaweysatay haddana inuu qolalka aan loogu talagelin gala ama dhex seexda ama isku kala balbalaariyo lugaha ku dhex taagtaago waa ceeb iyo fadeexo ma garatay waa hooyo way damqanaysaa ilmaheeda u naxday dee way u wada yeertay wiilashii oo dhan oo waxay ku tiri naanaa howl baa inii wada ay tiri iga qabsada marka hawsha inii wada waxay tahay ilmahayga qolkooda gabdhahayga cid geli karta malahan bay tiri wiilalow is abtiyo cidii gasho iska jira waana run hooyo kasta oo damqanaysa muxuu ahayd waa ay dhihi lahayd because beri haddii dhib ku yimaado ama laga kufsado waxaan shaydaan baa u sheekeyn kara ma garateen
maaragtay waxyaabo badanaa dhici kara marka iyadana ka hortag camal ayay samaysay way u wada digtay kulligood inaynu guriga gelin marka asaga maxaa ka soo saaray oo 7 saac habeenimo boorsidiisa u xirxirta uu u baxay weliba ayadoo hurdaysa waa sidee warka u dhigtay Esther waxay tiri anigoo hurdaya ayuu baagiis 7 saac habeenimo albaabka jafka yiri anigoo ka warqabin buu u maleeyay tiri inuu joogo ayaan waayay markii aan weydiiyana waxaa la yiri waa uu baxay hadalkii habeen dhexdaas aan naleed ayuuba ka carooday micnaha qolka ilmaha ha gelin gabdha yararaa joogo ma wax laga caroodaa ama laga tago labdhu wuxuu soo wadaa u maleynayaa laakiin ilaahay baa u digay Esther waxaa kuu sheegayaa waxaan wiilkaaga ahayn ama salaada kaa jibinoo waalida moogiye inta kale waa inaa gabdhaha ka ilaashataa kuraya aa guriga kusoo aruursanaysidna inaa iska ilaalisid way kuu fiican tahay ilaahayna ha xafido oolaada waayo waxaan shaydaan ayaa ku qaadi karo waa hooyo way shaqaysataa way ordaysaa dukaan bay aadaysaa marba waxbay duubaysaa youtube-ka irsaaqad ka raadsanaysaa hooyo aabbo la koriyo hooyo la koriyo maal haysata ciyaalkeeda ayadaa la dhabar adeegta mideeda kale naaga caytamaayo oo maaragta Esther usoo safanaya intay gabadha garab siin lahaayeen hooyo oo maaragta ilmaheeda la daalaa dhacaysa oo idinkoo kala ah inaad maaragta caay iyo aflagaado aad hawada usoo marisaan iyo kommentiyaal maaragta xunxun oo foolxun usoo qortaan aad meel usoo fariisataan caay iyo aflagaado aad ayaan uga xumahay Estherey hore u soco ha u joojina inaa niyo jabta ayay doonayaan ma garatay runtii qadarna waa uu kaa gardaranya waa loo wada jeedaa maaragtay inuu meelaha kaa soo caayo adigoo walaashiis ka weyna ama hooyadiisoo kalaa haddii aad soo dhaweysid ma ahan micnaheeda inuu maaragtay uu ku aflagaadiya ama asagu inuu iska kaa leeyaha oo kale ama uu ku hamiyo ma ahayn ma garate marka haddii wiil yar ay kala tageen qasab maaha inay wiil yar kale ay guursato adeertay guursan kartaa jooska idaala adeertana ma guursan karto laakiin qofka ay ka heshay guursan kartaa qasabna maahan in maaragta sanduulana ma ahan wiil yaraa ku qabi jira anna waa ku guursanaya inuu qadar meel lasoo istaago ama oo maaragta si ahaan ficil ahaan u sameeyo ama dadka guriga jooga oo caayo ama waa sida ayada inoo sheegtay gurigii amar asaga aan ahayn kama baxaayo tiri waa la yaabay shay aan meel dhigo waa waayaa waxay tiri fadaro xumo dhaqan xumo ayaan la yaabay marka walaalimaa usoo dhaweeyey haddii aan wiilasha dhan la hadlana asaga maxaa ka takooray bay tiri dee albaabka ayuu ka degtay ka cagacageeyey marka walaaley ana waxaanba ku dheelaa inaad ilmahaaga ilaahay ka sokow aa ilaashatid adigoo maaragtay wax ugu maqan ama maaragta lagaa farxumeeyo dhibkeeda leedahay ana waxaanba ku dheelaa kurayada dhanba hayaa caandhe because wiilkaaga moogi inta kale oo salaada kaa jibso albaabkooda degta tiraadid runtii dad xaasa ah qolalka aad sheegaysid aa ka kiraysatid abaayo dad xaasaa la helaya dad familaa la helaya waa run nolosha Nairobi way adag tahay sheergareeya nana ka siiya subscribe kana saara walaalayaal